Itoobiya iyo ciidamada maamulka TPLF maamulka Tigreega ayaa wali socda khadka internetka ayaa laga jaray deegaanadaasi waxaana cabsi badan ay ka taagan tahay caasimadda maamulkaasi ee Maqale iyo magaalooyinka kale oo fadhiisimo ay ku leeyihiin militariga Itoobiya halka ciidamada Tigreeguna ay ku jiraan difaacyo si ay uga hortagaan weerarada ciidamada federaalka. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa qeexay in militarigu ku amran yahay inay difaacaan midnimada dalka isagoona ciidanka gaarka ee Tigreega ku eedeeyay inay boobeen xeryaha militariga waxaana intaas uu ku daray in dulqaadka uu ka dhamaaday dawladda dhexe. Tigreeta ka soo baxday xafiiska hogaamiyaha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa lagu hawlgeliyay 3 janan oo hore shaqada uga fadhiyay. 3 janan ayaa ka soo kala jeeda qoomiyadda Amxaarada iyo Oromada. Wareegtadan ayaa imanaysa xilli xaalad adag ay ka taagan tahay deegaanka Tigreega. Golaha wasiirada Itoobiya ayaa 6 bilood oo badwa ku soo rogay deegaanka Tigreega. dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Itoobiya ayaa ku taageeray Abiy hawlgalka lagu qabanayo kooxaha hubaysan ee ka dagaalamaya deegaanka Tigreega. Abiy ayaa u muuqda mid xaaladda wadanka Itoobiya ku xalin kara awood military. sidoo kale deegaanada dawlad goboleedka Itoobiya waxa laga soo qaaday dhammaan ciidamada federaalka si ay qayb uga noqdaan hawlgallada lagu qabanayo maleeshiyada hubaysan ee ka dagaalamaysa Tigreega. ciidamada sida gaarka oo tababaran ee deegaanka Tigreega ayaa la wareegay 3 xarumood oo ay leeyihiin ciidamada Itoobiya. sidoo kale ciidamada Tigreega ayaa bilaqaystay 2 diyaarood oo nooca xamuulka kuwaasi oo deegaanka Tigreega u joogay inay soo qaadaan lacagtii hore ee wadanka Itoobiya oo la bedelay. sidoo kale ciidamada Eritrea ayaa ka dhinac dagaalamaya ciidamada dawladda dhexe waxaana xusid mudan in dagaalka ka socda deegaanka Tigreega uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac. laakiin khadkiga isgaarsiinta oo ka go'an deegaanka Tigreega lama oga khasaaruhu inta uu leeyahay. xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Ahmed ayaan kuul ka gaadhin dagaalka ay kula jirto maamulka Tigreega. fadlan halkan waa boga kuugu dhow ee kala socon karto wararka caalamka iyo kuwa deegaanada Soomaalida si aad ula socoto xaaladda wadanka Itoobiya mar walba isha ku hay bogan. fadlan subscribe saar mahadsanid.